composition of functions haddii aan haysano x haddii aan haysano x-kan ay ku jirto domainka functionka g marka waxay soo baxaysaa g of x functionkan ama valuega g of x haddii uu ku jiro domainka domainka function f marka uu noo soo baxo functionkeena ama markii la geliyo g of x la geliyo domainka function f valuegeedu wuxuu noqonayaa f composite with g of x composite f composed with g of x way noqonaysaa marka hadda tusaalahan aan haysana f of x inay la mid tahay square root of x g of x inay la mid tahay x plus 1 marka waxaana la dhahay find formulada functionkan formulada f composed with g of x marka waa function cusub oo loo yaqaano composite functions waa function ka kooban f composed with g of x marka functionkan formuladiisu maxay noqonaysaa in terms of x marka waxay noqonaysaa saan marka koobaad f tan soo qaadanaynaa f marka midkan saana loo qori karaa f g x gudaha marka macnaha x waxay ku jirtaa marka koobaad ku jirtaa functionka g of x na waxay ku jiraan macnaha kooda x waxay ku jirtaa domainka function g of x na waxay ku jirtaa domainka function f marka saasay soo baxaysaa f composed with g of x marka formuladeedu waxay noqonaysaa sidatan f maadaama ay square root ay tahay square root kan marka koobaad soo qaadanaynaa square root-ka kadibna gudaha waxaan gelinaynaa g of x marka midatan waxay la mid tahay square root because g of x waxay la mid tahay x plus 1 marka waxay noqonaysaa square root of x plus 1 marka functionkeena saas soo baxay square root of x plus 1 functionkan f composed with g of x waxay la mid tahay square root of x plus 1 marka domainka functionkaas wuxuu noqonayaa laga bilaabaa -1 ilaa laga gaarayo infinity u fiirso -1 waxaan ka bilaabaynaa meesha ugu yar una siin karo a positive value oo ah 0 because -1 haddii aan gelino inta waxayna siinaysaa -1 plus 1 waa 0 any number oo ka yar -1 wuxuuna siinayaa negative value square root-keedana ma raadin karno markan part b ayaan ka rabaa finding part b oo ah g composed with f of x g composed with function f marka saan ku heli karnaa g composed with f of x functionkan kii hore wuxuu ahaa f composed with g kana waxa weyn g composed with f marka sida tan ay soo baxaya is equal to g ayaa banaanka jirta f ta gudahan gelinayna marka saas ayuu soo baxaya waa x ku jirta function f ama x-ga domainka f ku jirta f of x na oo ku jiraan domainka function g marka waxay noqonaysaa easy marka koobaad function g ayaan qoraynaa function g muxuu ka kooban yahay the variable oo x ah plus 1 marka annaga the variable x teena waxaa ah f of x ayaa noo ah marka f of x ayaan qoraynaa plus 1 because hadda g of x waxay compose la tahay f of x marka f of x waxay noo gelaysaa booskii x
is equal to haddana waan sii substitute garaynaya f of x maxay la mid tahay f of x waxay la mid tahay the square root of x sooma square root of x marka meeshii f of x waxaan qoraynaa the square root of x marka the square root of x plus 1 the square root of x plus 1 marka g composed with f of x waxayna siisay functionkan square root of x plus 1 functionkaas ayay na siisay marka domainka functionkaas muxuu noqonayaa domainkeedu wuxuu noqonayaa laga bilaabaa 0 ilaa iyo infinity because square rootku wuxuu noo yahay kaliya positive value wuxuu na siinayaa laga bilaabo 0 ilaa iyo any number oo positive ah